بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صومالي أنوراتو صومالي أنوراتو أزرعوا هاتوا ومالي فرحدت وعبك تاجر وزير الدولة الفدرالية وزير عبد الرحمن وزير العدالة وزير كلها تقانين وهليا عبد الجليل حسن عبد النور وعاوي مرقى أنا سونا ويا ذي سعد مرال ويا ولا لي ومالي فرحدة ومالي هذه دائما نقوله وعن هذه وما عندنا يا دولة ديال الصومالية يا وزير النظام الفدرالي كشقية أو شقية أنت كشقية صيبة إلى أي أجر حسنا كسي إن الإسلام وعن وزير كيجا عبد الرشيد حسن عبد الرشيد جلال وما عندنا يا سيدك النمذله وضد نمذله والشرف كله وولاء كله وأطرد له ووتنا سليد دل كيسة دباتوي كي أبارة كجران ووقع قاتمات إن مرتاي وقاتو الشيء نمذله وقيمة بدل آدي وزير أنا وعادي كودي يا وزير العدالة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وزير عبد الرحمن غيره وزير عبد الرشيد جنان بدونيها مامورك مقالة بن حاول يكون جدو يساعدونها هل كان جوجا غير جدو جارهان مقالة بلد حاول وعن مركز يقول سلام إسلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد السلام مدنية اليمرويين وحنانيك وكوها لنا مقع مدحوينها جمهورية مدن محمد عبد الله محمد رئيس الوزراء حكومة مدن محمد حسين روبلي إذن سوء كارسينينا سلام إيا هديات نكاكت إمت مدحة قرنك الصوماليات دولة مدن القاية الصومالية وحا فرحت يا رين وآه إسلام مركانا أي سوء نوكو قادر إيسا وآنك التاريخي وهل كان كويمت وزير عبد الرشيد عبد النور جنان ودكتين دوركم كلية هاي نبض جود عن صوماليا كارهان قبل كان وزيركم وهل كان كويمت لبعض الرموض واسحان بارسن من ظهر وكرشو يدمقشو السقو وكرتي إنه قرنك صوماليا الأوهي الليو إنه ضدك مقالدان يقبل كان كلنا الأوهي الليو تاسو وقوقاتي inuu ka qayb qaato nabadgelyada iyo sidii loo soo aftari lahaa colaadii halkan ka jirtay isla markaana uu dawladda ula shaqayn lahaa waxaa garashada wasiirka lagu qabay dadaal ay bixisay dawladda federaalka ee Soomaaliya oo ku aadan sidii isfaham looga gaari lahaa tabashadii dadka reer Gado gaar ahaan wasiir Janan oo ah wasiirka amniga ee Jubbaland iyo xiisadii jirtay sidii loo xallin lahaa labadaas dadaal oo la isku qabay waxay keeneen in iyada oo la wada jiro wasiir Janan iyo maamulkii gobolka Gado iyo saraakiisha amniga halkan la wada joogo in la wada shaqeeyo midnimana la muujiyo waxaan rabnaa inaan idiin sheegno go'aanka uu qaatay wasiir Cabdirashiid Janan ee halkan uu ku joogo waa hiil qaran oo taariikhi ah oo ku soo aaday maalinta mudne waxa uu ka garay taariikhda Soomaaliyeed dawladda Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeedna waxay u hayaan abaalkaas iyo mudnaanta ay leedahay talaabada uu qaatay waa mid ka farxin doonta qof kasta oo jecel sharafka iyo midnimada iyo quwadda qaranka Soomaaliyeed waxay kaloo tahay talaabo ka nixinaysa cid kasta oo aan jeclayn sharafka oo aan jeclayn midnimada oo aan jeclayn in Soomaaliya ay sharaf lahaato ugu dambayntii waxaan halkan kala hadlayaa cid kasta oo ku hawlan wax u dhibaya qarannimada Soomaaliyeed waxaan leenahay maanta tusaale wanaagsan ayaad haysataan waxaan leenahay cid kasta oo isku dayaysa inay dadka Soomaaliyeed kala dhantaasho ogaada dunta dadka Soomaaliyeed waa ka fogtahay inta aad u malaysaan waana isaga dhow yihiin inta aad u malaysaan waana isaga tanaasul og yihiin inta aad u malaysaan ma noqon karaan dad ajnabi oo dalkooda u adeegsado
mana noqon karaan kuwa sharaftooda ku xadgudba sidaas daraaddeed wasiir waxaan ku soo gaarsiinaynaa adigana tahniyadaas iyo hambalyadaas waa kuwa mahad celinaynaa waa ku soo dhowaynaynaa intaan wasiir cabdiraxmaan dheere inoo soo gebagabayn waxaan jeclahay wasiirka in carabkiisa aad uga maqashaan kelimadaha wanaagsan ee uu idiin wado iyo sababta uu halkaan u yimid أولاً وسيلة ولا سلمى أولاً Somaliyeed maamulka iyo